maxaa kaa celinaya guusha? Ma tahay nasiib daro mise dadka kale? Runtu waa tan, adiga ayaa iska hor istaagsan. Haddii aad rabto inaad noloshaada beddesho, daawo muuqaalkan ilaa dhammaadka. Dhalinyaro badan maanta waxay rabaan guul, laakiin ma rabaan waxa guusha lagu gaaro. Waxaad rabtaa inaad noqoto qof fiican, laakiin weli waxaad ku jirtaa caadooyinka kaa dhigaya inaad dib u dhacdo. Waqti lumis, moobilka in badan la isticmaalo, salaadaha oo dib loo dhigo, qorshe la'aan. Runta adag waa waxa aad noqonayso waxa aad maalin walba samayso. Haddii maalintaada ay tahay foodo, noloshaaduna waxay noqonaysaa foodo. Haddii maalintaada ay noqoto isku dhaxyaa, noloshaaduna waxay noqonaysaa isku dhaxyaa. Mustaqbalka laguu sheegayana waa maanta oo isku biirtay maalin kale. Maalinba maalinta ka dambeyso, noloshaadu haddii halkeedii taagan tahay, waxay ka dhigan tahay mustaqbalkaaga inuu noqonayo midka maanta aad qabanaysid. Qodobka koowaad ee kaa celinaya guusha waa caadooyinkaaga. Caado yar oo xun maalin walba la sameeyo waxay burburisaa mustaqbalkaaga. Tusaale, haddii aad 5 saacadood ku lumiso TikTok iyo waxyaalo aan faa'iido lahayn, sanad kadib waxaad waayi doontaa boqolaal saacadood. Laakiin haddii aad 1 saac wax barato maalin walba, sanad kadib waxaad noqonaysaa qof cusub. Waxaad noqonaysaa qof xirfad leh oo noloshiisa wax badan qabsan kara. Su'aal isweydii, maxaan sameeyaa maalin walba? Hal xeyndaab miyaa nolosheeda ku wareega maalin walba, mise maalin walba isbeddel yar ayaan sameeyaa? Caadooyinkeena ayaa naga dhigaya qof aan meeshiis ka dhaqaaqin. Noocee doonta ha ahaato caadada, qof walba asiga ayaa yaqaan waxa dhibaya oo caadooyinkiisa ah. Ku beddel caadooyin wanaagsan. Maalinkaaga ka dhig maalin aad maalin walba kasii horumarayso. Maanta haddaad 1 tilaabo qaadid, berri aad tilaabo kale ku dartid, mustaqbalkaaga ayay ifin doonaan. Laakiin haddaad bartaada taagan tahay oo aad caadooyinkaaga ku dul wareegaysid, guusha iyo adiga waad kala fogtihiin. Waxaadna u baahan tahay inaad isbeddesho si noloshaada ay u qurux badnaato. Qurxi maalintaada, beddel maalintaada, ka faa'iidayso maalintaada. Maxaan sameeyaa maalin walba? Isweydii. Qodobka labaad, iimaanka. Qof qalbigiisa ka fog Allah subxaanahu wa tacaala weligiis ma dareemi doono deganaan iyo xasilooni. Waxaad arkaysaa dad lacag leh laakiin weli murugo ku jira. Sababta waa qalbi maran. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, qalbiyada waxay ku xasilaan xuska Allah subxaanahu wa tacaala. Marka haddii aad rabto guul dhab ah, salaada hagaaji, qur'aanka akhri, ducada badso. Guul aan iimaan lahayn waa marnaan, waa eber, waa zero. Iimaanka qofkana oo waxyaalahana baraya adkeysiga, dulqaadka, inaynu u sabarno shayga. Marka aad guul rabto, waxaad u baahan tahay sabar, waxaad u baahan tahay dulqaad, waxaad u baahan tahay dadaal. Iimaanka ayaana mar walba nagu kaalmeynaya. Qodobka saddexaad waa fikirkaaga. Haddii aad aaminsan tahay inaadan waxba qaban karin, waxba samayn karin, waxba aadan noqon karin, ma noqon doontid weligaa. Maskaxdaada ayaa go'aamisa noloshaada. Dad badan waxay isku yiraahdaan, aniga ma awoodo, fursad ma hayo, Soomaaliya waxba lagama qaban karo. Laakiin runtu waa, qof walba wuxuu leeyahay fursad. Farqiga u dhexeeya dadka guuleysta iyo kuwa kale waa fikirka iyo ficilka. Waxyaalaha maskaxdeena ay noo sheegayso inta ugu badanaa waa been, inta ugu badanaa waa madadaalo, inta ugu badanaa waxay rabtaa inay nasato, inta ugu badanaa waxay rabtaa inaysan waxba qabanin. Laakiin ogow, maskaxdaada haddii go'aansato inay wax barato, inay nolosheeda horumariso, inay fikrado fiican ku siiso, adiga ayaa ka faa'iidi doona. Maskaxdana hadba waa sida loo tababaro. Haddaad u tababartid inay maskaxdaada iska caajisto, iska seexato, aysan waxba qabsanin, waxaad ahaanaysaa sida ay maskaxdaadu marka aad ka dhigtay. Hagaaji fikirkaaga, hagaaji maskaxdaada. Waxaa isbedeli doona fikirkaaga, waxaa isbedeli doona ficilkaaga. Haddii aad rabto inaad isbeddesho maanta, bilow salaada oo waqtigeeda aad ku tukatid. Ku ilaali 5 salaadood waqtigooda. 2, yaree waqtiga moobilka aad isticmaalaysid. Waqtiga tirada badan aan ku bixinayno moobilkeena aan yareeno, si aan nolosheena wax badan u qabsano dhammaanteen. 3, samee qorshe maalinle ah. 4, baro xirfado cusub. Mar walba ahaa qof wax baranaya. Xirfadan markaad baratid, ku xir xirfad kale. Markaad baratid xirfadaas, ku sii xir xirfado kale. Waxay kaa dhigaysaa qof loo baahan yahay. Waxay kaa dhigaysaa qof u diyaarsan nooc walba oo uu kaga faa'iideysan karo xirfadihiisa. 5, la socdo dad wanaagsan. Dadka ugu riixaya dhanka wanaagga, dadka ugu riixaya dhanka guusha. Asxaabta wanaagsan meel wanaagsan ay ku geynayaan. Isbeddel weyn ma yimaado hal maalin. Wuxuu ka bilaabmaa talaabooyin yaryar oo isbiirsaday. Haddii aad rabto inaad noqoto qof cusub, bilow maanta, ha sugin beri. Maanta ayaad leedahay, beri waxa imaan doona ma taqaanid. Wixii la soo dhaafana adiga ma lihid. Maanta ayaad leedahay. Maanta waxaad qabsato ayaad beri guranaysaa.
maanta waxaad beerato ayaad beri heli doontaa. Dhallinyarnimadaada maalgasho si mustaqbalkaaga, gabowgaaga iyo waayeelnimadaada ay kuu saacido maanta. Maanta usii diyaarso, isku filnaansho sii gaar. Waddada aad ku gaari lahaydna maanta ayaad haysataa. Ha sugin beri. Lama huba beri inay imaanayso, laakiin waxaa la hubaa xilliga aad joogtid adiga ayaa iskale. Ka faa'iidayso maalintaada. Haddii muuqaalkan wax un ka anfacay, like saar, siina share garee qof u baahan. Channelkan kusoo biir Mohan Osman. Waxaan rabnaa inaan aragno dad wada guuleysanaya dhalinyaro oo aniga kow ka ah oo aad adiga ku jirtid. Muuqaalka xiga mahadsanid.